السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام الله ليال ملو برجوتو أدجوكين waxaan rabaa horto sheekh malahan balse ku soo dhawaada channelkan waxaan rabaa xoogo inaan ka yara falfaaloodo xaaladda South ka taagan runtii waxaan arkay kalbi badan oo adiga meelaha la wareejinayo qaarkood leeyihiin dadkan waa xawayaaniin iyo waxyaalahaas cam oo dadkan wadanka ku nool la eedeynaya sida madowga hadday yihiin balse Soomaali waxay ku mahmaaday biyaha maxaa karkaraya kulaalkii miyaa maga qaad mahmaha inay saas helayaan jeclahay runtii horta dadkan South Africa madowga ku nool waa madow maskaxda laga gumaystay muddana la soo gumaysan jiray markii ay xorooween waxaa jiray inuu soo baxay madaxweynihii usoo doodi magacada usoo halgamay oo labadii qaan Nelson Mandela la yiraahdo inuu usoo baxay madax ahaan ugu soo baxay balse inequality-ga halkan aad iyo aad ayay u kala saraysay sidii la ogyahay caddaantii waddanka haysatay oo dadkii gumaysi ku haysatay inay waddankii dhuuqeen wixii maal ku jiray ama ha ahaado luul ama diamond amaba gold ha ahaado adigii waxay noqotay inay hantidii dadkan ka taajireen aad iyo aad uga taajireen marka madaxweynaha asaga waxaa la dhahay inuu madaxnimadan ku siinaya madaxtinimada ayaan ku siinaya waddankan xor sida adiga rabta ayaa lagu siinaya balse waa in adigu wali gacanteena aad ku jirto marka saas aligeed horta politiga marka kowgeeda sidaas ayay qaraamnimada uga bilaabatay halka ayada ilaaluushka iyo wuxuu sameeyey marka barnaamij wuxuu sameeyey si uu dadkan ku qanciyo dadkiisa madow uu ku qanciyo bishii wuxuu yiraahday intaas ayaan siinaya cunugii reerka ilmaha haystaan patient wax la yiraahdo ayuu u qoray lacaga adiga aan wax aan ahayn waxba aan ahayn adiga waxaan u maleynayaa 420 ay tahay waadiga markay ugu badan tahay $30 ama bishii cunigiiba haddii xaaskii ilmo leedahay intay 18 sano ka gaarayaan dadkiina wuxuu u dhisay guriyihii u dhisana guryo nafaqo leh maahan waa 2 qol iyo jikadooda iyo musqushooda qaarkooda banaanka ku yaalo qaarkoodana gudaha ku yaalo markaas waxaa dhacday dadkii inay sida lagu hilmaamo haddii markaa wax kale oo loo qabto ilaahay unta mala waxaana la dhahay ordoo u shaqeeya dadkii taajiriinta ama bacdaan ha ahaadaan ama hindidii waddankii ka taajir ha ahaadaan waxay noqotay inequality-ga inay aad iyo aad usii xaddaaftay madowgii intii yareen oo marka ayada wax baratay mase soo halgantana waxay noqotay inay politic meesha adiga wixii kursi fiican ka heli karo uu ka helay wixii ka taajiri karo meesha uu ka taajiray qaarkooda dibadaha iyo meelahaas iyo ganacsi waxyaalahaas adiga opportunity-ga markaa ugu sahlanaa oo maskax furneed inay opportunity markaa ayada ka faa'iidaysteen balse dadkii aan waxba baranin oo halgankii ka soo qayb galay oo dadka la soo halgamay waxay noqotay inay markaa halkaas lagu hilmaamo oo wax loo qaban alaa kulli xaal waxbarashadana xaggoodana aysan saa ugu fiicnaan markaad arkayso dadkan in yaroo mudaharaad markay dhacdo hanaaqan faraha aadka u fara badan wax walbaba aan laga filanin ay ku kacayaan wax waa hanaaq magaceedii sida ula fadhiyeen u kuusaayeen hal mar sidii volcano u qaraxda camal marka dadkaas waxaas ayaa ka dambaysa runtii
dowladda South Africa waa dowlad fiican xagga sharci ahaan balse dadkooda ayay hilmaantay dadkii ha wax kaloo nidhi kara malaha dadkooda ayay hilmaantay marka dadkan waxay arkaan badidoodan haddii aan Soomaali nahay way jiraan Soomaali waxaad arkaysa shalayta imaatay ayaga isgarab qabanayo dukaankooda shaqo iska siinayaan sanad iyo 2 sano kadib ninkii oo shaqaalihi ahaa dukaan u furanaya 2 sano 3 sano ka bacdi ninkii gaarigu wataa gurigu dhistay dukaanku la furtay marka dadkan waxay fahmi waayeen systemka ayaga dadkan shalayta imaaday ay ku taajirayaan mise wax ku qabsanayaan bas ayaga dadka wadanka ku noolaana weli aysan waxba ka qaban karin marka maadaamii madaxweyne walba uu soo qabto wadankii uu dhaho niyow kaal adiga dadka taajiriinta u shaqeeya mishaarka lagu soo siiyo 4,000 adigu wuxuu ahaa 500 ilaa iyo $600 mise ka yar badidooda ka yar ka shaqeeyaan ilaa $300 ku shaqeeyaan iska cuno adiga waxba ha hadlino markii doorashada la gaarana waxaa doorataa dadkii xornimadii siiyey marka saaxib sheeka ka dambeysa anaka waxay u eg tahay mar dhow in anaka sida waxyootiyahaan soo cararo doono mise aan soo doori doono xaalad aad iyo aad u kacsan tahay hadda wadanka aan magaalada gobolka aan joogno Western Cape ayaa la yiraahdaa Western Cape waxaa haysta gumeysiga ayaa sharci ka haysta cadaantaana u badan halkan runtii aad iyo aad ay u dagaaltamayaan weligoodna waxay dhihi jireen inaan ka go'an ayaan u baahannahay South Africa inaan ka go'an u baahannahay sababtoo isku maskax ma nihin isku fikrad ma nihin isku dhaqan ma nihin waxyaalaha ayada isku maalna ma nihin marka sida ayada duufta ayada marka ayada ka jirto KwaZulu-Natal iyo Gauteng Johannesburg meelahaas iyo hadda Pretoria marka ayada Gauteng ka tirsan tahay marka u gudubtay anaga ina maysan soo gaarin bal inay soo gaari doonto laba cali isma weydiinayso taa ayada asal marka ugu horeysa meesha waxay ka bilaabatay hadal meesha waxay ka bilaabatay marka ugu horeysa waxay ahayd mudaharaad oo madaxweynihii hore oo marka adiga weligiisa dadka waxa u qabaneen ka badan weligiisa waxa uu muusan qabanin la xiray sababta loo xirana waa la iska garanaya inuu tuuga ahaa uu dadka dhacay laaluush weyn aad qaatay oo ka ganacsan jiray hub iyo waxyaalahaas ka ganacsan jiray hadda ala kulli xaal maxkamadda ku xukuntay sanad gudihiisa sanad 5 bilood asagana waxaa lagu yiraahdaa soo dhiib laba muddo 5 bil gudaheed isku soo dhiib wuu isdhiibay markuu isdhiibay waxay howsha meesha ka bilaabatay marka madaxweynihii markii la xiray mudaharaad yar oo adiga marka adiga oo dad soo abaabulay ee sheekada meesha ka bilaabatay xanaaqii way wasiibeynaato marka adiga hadda xaal waxay maraysaa ilaahay adiga soo dejin karo marka intaas oo rabay inaan la wadaago waan islaama walaalayaal meel walba joogto till next time bye